يعني قلب دغخ ما اساس ديباي iyo qalbi dhagax horta qalbi dhagax is dhiibay ma jirin qalbi dhagax anaga dhiibna horta marka rekoorka sare loo dhigo qalbi dhagax is dhiibay ma jirin qalbi dhagax anaga dhiibnay sideedaba marka xafiiskaas aan joogo wax shaqada aanay qabanaa waxaan ka shalaynaa ma jirto ani shaqo oo aan danteyda aan ku qabsanay ma ahayn wixii markaas ila ahayd dadkaan xiray anigu furajana ma ahayn waa ku sheegay anigu shakhsiyan waxaan rabaa in aan horta qalbi dhagax iyo qoyskiisii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ONLF aan ugu cudur daarto oo raali gelin buuxda oo public aan ka bixiyo doorkii aan ku lahaa waxaan rabaa Soomaaliyeed u sheego arrinkaas anigana igama bilaaban igumana dhamaan inuusan iga bilaabanin iguna dhamaanin waxa cadeyn ah qalbi dhagax waxa laga qabtay gaalkacyo sixta lagu sida loo qabtay iyo cid ka dambeysay annada waxa waaye ama waqti kale aan ka hadli doona faahfaahinteeda haddana ma rabna inaan ii sheegeen waaba arrimo sira ma ba fiicnaba laakiin maalin oo la kala classification lagu sameey karo ayaa jirto laga hadli karo haddii aniga marka aan qalbi dhagax mashruuciisa uu kooban yahay qalbi dhagax gaalkacyo ayaa Cabdi Ilay iyo Ethiopian iyo ciidan Puntland iyo maamulka galmudug ay kulligood ku baratamayeen inuu gacanta u galo Ethiopian lagu wareejiyo markaas horta gaalkacyo la joogo sanbaloosha waxaan ku takrifalay waa la dhihi karay ayada nafteedana hadda ay tahay yani doorkan ku lahay iyo taas nafteeduna calaamad su'aal ay ka taagantahay qalbi dhagax anigu waxaan aaminsanahay waa soo badbaadiyay bad iyo calool nibir ku jira waa ka soo baxshay xamaran keenay xamar markii aan keenay horta kadib la diray gaalkacay lagama dirin hadii gaalkacay laga diri lahay Cabdi Ilay inuu dilo si raqiis in loo gato qadiyad wax oo hadda oo ka faa'iido lahay gaalkacay in laga dhiibo nikliyado ii sheeg maxaan ku dhahaa qalbi dhagaxna oo wax oo ka faa'iido lahay anigu hadda ma og waxa ku soo haray dadaale waa mu'amaraad waxaas فريم قرينا وح مؤامرات اللي يرادو أو أنا عن سمينا والله بالله طلع نسجر وحن شيل أيوها سيد وقفي عن إن أنا أهندل الجريان عن سنة ويتعرض كو نيكي حبل لقبتين لكن سر قيس إنه سكوبه حمر على كاني كذب حمر أو كتجي أنا وحد عن الحين هبلا كذبي هبلا كذبي هبلا كذبي waxaan rabaa marka inaan Soomaalina mid iraado qalbi dhagaxna iyo ololna mid dhaho madaxweynaha iyo xukuumadana mid aan dhaho waxaan rabaa horta koow madaxweynaha iyo xukuumadda keyskan sida aan u handal garaynay overall mas'uuliyadiisa ka macaran kana waa mis handal garaynay si fiican waxaan oo daraama iyo buuq ah ومرنا هبابسين ما مسهندل معناها مرهبابين maahan يعني sida oo loo xakameeyay si xigmaysan maahayn anisa aamisana waxaasuna ama duruufaha iyo waxa saakeenay gadaalan ka faahfaahin doona waxaan jeclahay marka bacdama xukuumadda Soomaaliya oo NLF iyo qalbi dhagax iyo waxoo dhanba ay yiraahdeen waa argagixiso horta waxaan rabaa xukuumaddii dib in loo fadhiisiyo talada aan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha aan siinayo waay oo ay Ethiopia oo shalayba ay terrorist hawlafna ugu qorray qalbi dhagax u noqdo waa ka tiraan waa xisbi iyo dhaqdhaqaaq la aqoonsiyahay oo xalaal oo aan argagixis Ethiopia ka ahayn hadii Ethiopia shalay la dagaalamaysa ay maanta argagixis ka ahayn annaga buukiskeena argagixis oo aan laf kuma qornaan karto si mashruucan loo xaliyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanay go'aan geesinimo in la qaataan maqaldam waa ilaahay oo aan laf in golaha wasiirada fadhiisiyaan ka saaran liiska argagixisada oo aan laf xamar ay ku marti qaadaan qalbi dhagax xamar ay ku marti qaadaan si guud Soomaali ay ugu samayn xirto ugu hoyato ugu raali geliso oo aan lafna ay fursad ay u hesho in caasimadda timaado baarlamaankii ka dagaalamay level garayntii iyo argagixisada lagu soo rogana ay u mahad celiyaan taas horta madaxweynaha waxaan kula talinaa ii sheegeen waxaan kula talinaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda guud ahaan mashruucan in iska soo xiraan raali ahawna waa wax la fahmi karo nin qaladkiisa qartana dadku waa ka garaan karaa
waxaan rabaa qalbi dhagax iyo la filmidaan dhaho qalbi dhagax hadda kor xabsigan ugu tagay waxaan u sheegay dawladdii Soomaaliyeed tacbaanka ahayd dartiis inuu dumar rabto waxaan ka codsaday asaga uu badbaadi doonaa inuu ka faa'iidana dhici karta waxa uu hadda sharta loo maleynaayo horta inaysan dartiis dawladda Soomaaliyeed aysan u dumin oo farmaajo Soomaali haddii si kale u ridayso ama ay talaab uga qaadayso kuushii lagu qabsan karaa jiree because of qalbi dhagax inaan horta maalin ilaahay keeno aanan cusbada nabarka farmaajo lagu xuquuqin Soomaalida haddii lagu soo jeediyo apology iyo raaligelinta aniga shakhsi aan ku soo jeedin nin hadda waxna deystan waxna disho waa tahay waa garaawis karta inuu uga garaabo guud ahaan oo aan laf iyo asagana waa rabaa haddii Soomaalida iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu kalsoonidaas intii go'aankaas qaataan raaligelin ka qaataan inuu qaato waa rabaa waxaan rabaa marka mashruucan marka Soomaalida midaan leeyahay Soomaalida waxay tahay waxaanu daraamaa iyo waxaanu negativity iyo waxaanu weerar waxa lagu toojar gareynaa waa madaxweynaha lagu toojar gareyn ee wax ma aaminsani Soomaalidan qaylinayso crocodile tears waayo oo hintooda waa been مواد ودانينما إني كتاي مقبو Soomaali jecel إني كتاي مقبو قلبي دفاع إني كتاي مقبو قد يدعو أن لفي أتاقين إني كتاي مقبو مدحوينه بعد ما وحي لكالعدي واي نكانا لغو دبا لغو تهنسيها ودانينما إيو ملا هادا كور جيم أوسور ديلا لغو حمين نموغي ما أملينا أي Soomaalidu إن أي وحانو دبكتا warfar Soomaaliya sideedaba ishaan waxa u yeelo waa Soomaali ee farmaajo uma yeelin farmaajina dawlad Soomaaliyeed ma difaaci karo qof Soomaaliyeed ma difaaci karo inta duruufteenu sidan ka tahay dabiiciyan dawladaha fashilmay oo wiiga ah anagoo kale taa qadiyadahooda iyo go'aamadooda masiiriga siyaasadeed uma madax banaana tusaale waxa ka soo ah adduunka dagaal ka soo dhacay Germany oo kale hadda economic power Europe dagaalkii labaad adduunka 45 inta la qabsaday ayaa qoodihii Ruushka iyo Mareykanka iyo Yurubiyaanku qaybsadeen ciidan ma sameeyay kartiin madaxdoodii maxkamadda la saaray dagaalkii magdhawa lagu xukumay waa la gumeystay Ruush iyo ninba meel uu ka degay taaka loo qaybsaday humiliation waa la qaataa ويعني waxa la qaataa ihaano waa la qaataa daruufahan oo kale dawladuhu markay marayaan marka madaxweyne Soomaaliyeed oo haybad ilaalin kara annaga duruuftan ku jirna ma jiro ninka odaga wuxuu san karin horta in lagu dhigay